mawlid haddii aynu sii eegno arrimaha falanqaynta waxaa muuqata in halis weyn iyo hubanti la'aan uu ku jiro heshiiska Iran iyo Mareykanka maadaama ay sii socdaan hanjabaadaha Trump iyo weerarada Iran maxay arrimahan khubaradu ay ka tiri طبعا waxaa arrintan waxa moodaa in walaac weyn ay ku hayso cid walba oo dareynaysa arrimahan gobolka bariga dhexe in xal loo helo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump gorrit waxaan dhageysanayay nin khabiir ah oo ka hadlayay oo Iran iyo Maxamed Barandi yiraahdo wuxuu yiri suurtagal waxa ah subaxii markuu soo tooso inuu la soo toosi doono siiqa kale oo ka duwan hadalladii uu ka hadli jiray waxa moodaa marka inuu ogaaba saakay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka hadlayay shirka G7 waxyaalaha cajiibka oo ka hadlay waxa kamid ah inuu Iran u hanjabayo dad badan waxay leeyihiin xabajoojintii la gaaray horaantii bishii Abriil ee dagaalka lagu joojiyay waxay ahayd mid si toos ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kaga dalbaday ra'iisul wasaaraha Pakistan dagaalkii la joojiyo khubarada arrimaha militariga haddii ay noqon lahayd kuwa Iiraaniyiinta iyo kuwa Mareykanku intuba waxay isku raacsan yihiin Mareykanka iyo Israa'iil oo gacanta sare leh inaysan inaba haba yaraatee dagaalkan joojin lahayn laakiin culays weyn oo jiro marka hadalkan waxa lagu fasiray ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hadal u muuqan kara mid uu ku doonayo inuu iska dhigo nin gacanta sare leh oo Iiraaniyiintu wax u yeerinaya laakiin Iiraaniyiintu si degan oo quman oo xisaabtan ku dheehan yahay ayaa waxa la sheegay inay u wajahayaan hadallada ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isla markaasna dantooda iyagu ay wataan wararka qaarkood waxay sheegayaan in culays Trump uu ka saaran yahay dhanka Israa'iil iyo sidoo kale dad Israa'iil aad ugu ololeeya kuwaasi oo ku doodaya heshiiskan inuu yahay mid la isku dhiibayo Iran sida hadalka loo dhigay nin khabiir ah oo Amerikaan ah waxa uu ka hadlay arrinta heshiiskan wuxuu leeyahay Mareykanka iyo Israa'iil waxay u weerareen Iran iyagoo leh Iran waxaan ka joojinaynaa inay samaysto hub nuclear laakiin heshiiskan wuxuu u ogolaanayaa Iran inay bacrimiso uranium marka waxay leeyahay meesha ma ahayn waxa loo socday Iran nuclear inay leedahay laakiin ujeedadu waxay ahayd in la afgambiyo xukuumadda Iran in wadanka Iran gabi ahaan la wareego laakiin arrintaasi ma suurtagelin waa lagu fashilmay meel marka looga laaban karo ma jirto waa in lagu adkaystaa aragtidii ahayd Iran baan doonaynaa inaan ka hor istaagno nuclear marka fadeexa weyn ayay ku tahay Mareykanka iyo Israa'iil oo isku tirinayay in Iran ay si buuxda gacanta u dhigi karaan waxaana soo baxay war kale oo dhanka mukhaabaraadka Mareykanka laga helay waxa la leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu yiri la iima sheegin in Iran ay awoodan leedahay ay ku xiri karto Mareykanka Hormuz arrintaas waxay noqotay arrin la yaab leh xitaa waxay keentay inay ku jeesjeesaan falanqeeyaasha ama lafagorayaasha Ruushka waxay leeyihiin sida ku dhici karta madaxweynaha Mareykanka inuusan dareemin Iran inay leedahay awoodan saakay barnaamijkii waxaynu ku sii daynay warbixin laga helay mukhaabaraadka Mareykanka oo ay ku sheegayaan in Iran ay haysato wax ka weyn nuclear oo ah Mareykanka Hormuz madaxweynaha Mareykanka iyo reer galbeedka iyo cid kasta oo arrimaha bariga dhexe daneynaysa oo xitaa ay ku jiraan wadamada khaliijka inta waxa la yiri waxaysan u heli karin xal si kastoo la sameeyo arrinka Mareykanka Hormuz Iran marka waxay leeyahay adduunyada waxay ku dhigtay cunaha cid ka fujin kartaan ma jirto taasaa keenaysa marka tanaasul inuu sameeyo madaxweynaha Mareykanka hadalada marka Mareykanka ka soo yeeraya Donald Trump iyo cagajugleynta Iiraaniintu waa og yihiin inaysan wax macnaha sameeynin waxna aysan ka bedelin xaaladda hadda Iran iyada isku aragtay gacanta sare inay leedahay isla markaasna ay go'aamin karto dhabaha loo dhaqaaqi doono waa gartay waxaa jirta mawlid su'aal weyn oo la isweydiinayo daawadayaasha iyo dadka falanqeeya siyaasadda way isweydiinayaan taasi oo ah heshiiskan haddii uu burburo yaa dhibaato ku qaba dhinacyada dagaalamaya ama Mareykanka haati iyo Iran midkood horta marka koowaad dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacayaa wadamada khaliijka lacag balaayin dollar ayay ku maalgeliyeen Mareykanka hanti fara badan Mareykanka way ka taalaa gobolka bariga dhexe gaar ahaan wadamada khaliijka marka laga soo tago inuu saldhigyo military uu ku leeyahay shirkado fara badan oo Amerikaan ah ayaa waxay ku hawlan yihiin
hawlaha soo saarista batroolka ma ahan inay saami ku leeyihiin laakiin shaqada laga qabanayo ayaa muhiim ah waxaa kaloo jira dad xirfadlayaal ah oo aad u far badan oo Amerikaan ah oo reer Yuruba oo ka shaqeeya wadamada khaliijka shaqooyinka caadiga ah xitaa qabanaya dadkaasi lacag aad u far badan ba ka soo gasha shirkadaha Mareykanka marka laga soo tago kuwa shidaalka shirkado fara badan oo dhanka tiknoolajiyada ayaa xarumo waaweyn ka samaystay haddii ay noqon lahayd Kuwait iyo Imaaraadka Carabta oo kale Amazon oo kale Tesla oo kale shirkadaha dhanka tiknoolajiyada Google oo kale Apple oo kale shirkadaha marka waa shirkadaha Mareykan hanti kasto ay sameeyaan waa hanti Mareykanku leeyahay waxa kaloo meesha yaal dana weyn oo Mareykanku uu ku qabo oo la doonayo isbedel in lagu sameeyo Shiinaha iyo Ruushkan ay riixayaan gobolkan in laga saaro Mareykanka gabi ahaanba marka cidda qasaaraha horta ugu weyn oo soo gaari doono oo wadamada khaliijka oo dushooda lagu dagaalami doono saameyn arrintan ay ku yeelan doonto noloshooda caadiga ah Iiraaniyiintu hadda Mareykanka Hormuus inkastoo uu xiran yahay maraakiibta ogol yihiin waxa kamid ah maraakiibta Turkiga maraakiibta Pakistan maraakiibta Shiinaha iyo wadamo dhowr ah laakiin xitaa Sacuudiga Kuwait Qatar Imaaraadka Carabta maraakiibtoodii halka kama gudbi karaan iyo Bahrain ayaa dhaweyto waxa ka gudbay hal markab oo Qatar ka tagay oo shidaal sidii gaaska dareeraha LNG loo yaqaan Pakistan buu ku socday Iiraan ba ogolaatay inuu markabkaasi ka gudbo meesha marka horta cidda koowaad oo meeshii la oran jiray laba maroodi meesha ku dirorta cawska ku baabaa horta wadamada khaliijka ayaa noqonaya cidda labaad oo Mareykanka madaxweynaha Mareykanka awood buu isbaday wuxuu yiri awoodda adduunka anaga weeye laakiin sidaas ma noqon bisha July hadii dagaalku si aan lagu gaaro qasab waxa doorashada in lagu guuleysan doono madaxweynaha Mareykanka oo aqalka Koongareeska aqalka sanadka ay la wareegi doonaan dimuqraadiga markay la wareegaanna waxay sameyn karaan madaxweynaha inay soo gala joojiyaan oo lagu qaado soo gala joojin ama mooshinkaas hadii xilka looga qaado isla markii waxa la keeni karaa mooshin kale oo dacwad lagu soo oogayo dacwadaas marka waxa dhici karta in xabsi uu gali karo waana arrin halis ah iska badaa marka xisbiga jamhuuriga inuu doorasho lagu guuleysto xitaa madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan saameyn ku yeelan karta waxa kaloo muuqanaysa arrinkaas marka waa arrinka saameynta dhaqaalaha iyo Mareykanka Hormuus inta kaliya uu geysan kara weeye xaggii ciidanka waa la isku dayay oo Israa'iil iyo Mareykanka oo ah laba quwadood oo ku hubaysan hubka nuclear-ka ayaa Iiraan oo aan haysan nuclear oo 47 sano cunaqabatayn lagu hayay weeraray laakiin Iiraaniyiintu markii Saddam Hussein meesha ka laga saaray maalintaas waxay go'aansadeen in lagu soo duuli doono waxa kaloo go'aan qaateen markii la weeraray Afghanistan waxay u sii xaqiiqadooday in lagu soo socdo Libiya markii meesha laga saaray Qadaafi haddana waxay u sii xaqiiqadooday markii Bashar al-Assad meesha laga saaray Bashar al-Assad markii uu dhowdaha 2024 laakiin 2023 ayaa Iiraan waxay bilowday sidii ay uga kaban lahayd dagaal lagu soo qaado hogaamiyaal waa laga dilay waa run burbur waa loo geystay kaabayaal kala duwan laakiin mucjisada dhacday waxay tahay waxa la leeyahay ilaa hadda waxa jira Iiraan hub aysan isticmaalin iyo saldhigyo military oo aan la taaban ilaa hadda meesha laga hadlayo marka gantaaladeedan inay yihiin gantaaladii ay isticmaashay kuwii ugu dambeeyay dadka qaarkood waxay leeyihiin Iiraan 60% awoodeeda way haysataa ama ha isticmaasho 40% kale ama hal la burburiye laakiin 60% oo waliba ah hubkii ugu muhiimsanaa ugu tayada badnaa ayay haystaa waa leeyahay marka waxa kaloo qasaaraysa Israa'iil waxay dejisay qorshe ay ku qabsanayso gobolka Bariga Dhexe arrin qarsoon ma ahayn xitaa safiirka Mareykanka Israa'iil fadhiya Mark Huckabee wuxuu yiri wax dhibaato uma aragno haddii Bariga Dhexe ay la wareegto Israa'iil qorshihii marka Israa'iil shaweyn oo lagu doonayay in Israa'iil ay ku qabsato Jordan iyo Lebanon iyo Syria oo xuduudda Turkiga ay tagto dhankan Baabil Mandab ay isku dayeen inay fariisato waxaas oo dhan waxay noqonayaan hal bacaad lagu lasay waayo
awoodda ugu weyn waxay ahayd awoodda Iiraan dhowr jeer oo ka sheekayna awoodda marka meesha baaqi ku ah Israa'iil marka iyadoo qasaarahaas baa soo gaaraya Iiraan way soo kacday iyadu marka la qiimeeyo qiimeynta militariyada adduunka si ay kala horeeyaan kaalinta afraad bay soo gashayba dadka qaarkood waxay leeyihiinba Mareykanka ka soo hormari kartaa iyo kaalinta saddexaad bay soo gali kartaa marka Mareykankuna waa naaqusay Iiraanna way soo kacday marka haddii su'aasha si fiican aan ugu daadigno qasaaraha koowaad waa khaliijka Mareykanka oo laba Israa'iil oo saddex adduunyada afar bay noqonaysaa Iiraan markaas shan bay noqon kartaa ilaa adduunyada way saameynaysaa arrintan reer Yurub ha noqoto Shiinaha ha noqoto Hindiya ha noqoto Pakistan wadamadan in Asia Afrika xitaa way saameynaysaa arrintan marka cidda afraad oo qasaaraysa waa adduunyada Iiraan marka shan bay soo galaysaa taasna waxay muujinaysaa istiraatiijiyadda iyo meesha ay fadhido waa gartay haddaan eegno dhanka dhaqaalaha waxaa jira warar isqalabsan oo soo baxaya oo ku saabsan cidda bixinaysa lacag dhan 300 bilyan oo dollar oo Iiraan la siinayo maxaa ka cusub arrimahaas waa arrin runtii mucjiso ah waxaa la filayay haddii Iiraan laga guuleysto shidaalkeeda la iibinayo in lacagta ka soo baxda Mareykankuna wax alaala wixii gantaal uu riday oo ka jarto Israa'iil qasaarihii gaaray lacag loo celiyo wadamada khaliijka lacag loo celiyo laakiin hadda waxay noqotay Iiraan lacag in la siiyo madaxweynaha Mareykanka Saki uu ka hadlay arrintaas si cad buu uga hadlay wuxuu leeyahay anagu bixin mayno lacagtan laakiin sanduuq baa la sameeynaya sanduuqa dib u dhiska Iiraan marka lacag bay helaysaa wararka qaarkood waxay sheegayaan lacagtaasi in badan oo kamid ah 3 bilyan in diyaarad intii lagu qaaday la geeyay Tehran wararka qaarkood waa sheegayaan inkastoo ka badan tahay lacagta marka waxa inteeda badan horta bixin doona wadamada khaliijka Iiraan marka magdhow bay ka rabtaa wadamadan waxay leedahay saldigeedina militariga ayaana ka soo weeraray dhinacaas horta waa dhinac waxa kaloo imaanaya sanduuq weyn oo Mareykanku wuxuu doonayaa inuusan lacagta asagoo bixin laakiin yaa bixinaya shirkadaha bixin doona marka shirkadaha Mareykanka ka socdaan Shiinaha qaar baa ka imaanaya South Korea qaar baa ka imaanaya Japan qaar baa ka imaanaya wadamada khaliijkana qaar baa ka imaanaya waxaa la rabaa marka in laga dhigo Iiraan in la maalgeliyo oo dib loo dhiso Iiraan marka halkaas waxay ka heshay faa'iido weyn wax allaala wixii ka burburay ayaa loo gudi doonaa Trump marka hadalka wuxuu u dhigay iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka sana wareysi bixiyay JD Vance waxay leeyihiin lacagtan lacag Mareykanka u bixinaya ma ahan laakiin shirkadaha bixin doona sanduuq baa la sameynaya Iiraan iyada waxay taagan tahay ama Trump ha bixiyo ama khaliijka ha bixiyaan ama adduunyada ha bixiso anagu magdhow maynu doonaynaa bilaash baan la soo weeraray gardaraan la ku haystay wana qabateen ay intaas la ku hayay wax ka soconayaan ma jiraan haddii aan la sameyn arrintaasi inay lacag ka qaado Mareykanka Hormuus maraakiibta maraysa in magdhow la siiyo oo dib dhis loo sameeyo haddii ay noqon lahayd boondooyinkii isbitaaladii burburay warshadihii burburay xarumihii burburay guryihii burburay iskuuladii goobihii kale ee jaamacadaha intuba dib dhis bay helayaan iyo ceelasha shidaalka xitaa iyo ceelasha korontada marka arrintada waxaa laga dhigayaa maalgelin shirkadaha ay bixinayaan oo dib dhiska ah laakiin Iiraaninta waxay leedahay ciidan doonta ha bixiso anagu 300 bilyan ayayna rabaan inaan helno arrintan waxay u muuqataa inay ku guuleysanayso laakiin way jirtaa caqabad Israa'iil isku dayaysa inay ka hortagto heshiiskan waxaa jira war hadda ka soo baxay dhanka Israa'iil warbaahinta Israa'iil ay tabinayso oo ah shaki weyn inuu ku jiro heshiiska inuu guuleysan doono marka waxaynu arki doonaa ilaa iyo Jumcaha waxa ka soo bixi doona wadanka Switzerland oo lagu kulmi doono